السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo. Waa maalinimo Jimcaha barnaamijkuna waa kii labaad taariikhduna waxay ku beegan tahay 5 September sanadka 2025. Haddaba qodobada barnaamijka waxaynu kaga hadli doonaa wararkii ugu waaweynaa ee soo dhacay tan iyo intaynu kala maqnayn. halkee buu marayaa dagaalka ka soconaya Gaza duqeymaha Israa'iil ilaa hadda maxay burburisay iska caabinta Falastiiniyiinta ee Casa Musa ilaa hadda maxay burburiyeen xaaladda wararkii ugu dambeeyay Gaza iyo jawiga siduu ahaa wax yar ka hor magaalada Gaza. waxaa soo kale barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa Al-Qassam oo soo bandhigtay maxbuus ka mid ah maxaabiista ay gacanta ku hayso isagoo iska dhex lugaynaya ama iska dhex socda bartamaha Gaza. fariin ayuu Netanyahu u diray wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil isaguna wuxuu ku hanjabay in la furay albaabkii naarta sida uu yiri magaalada Gaza wuxuuna sheegay inay sii xoojin doonaan weerarada ay ku hayaan magaaladaas. xaaladda guud iyo dadka xaaladoodu sida ay tahay khasaaraha soo gaaray iyo waxa laga yiri weeraradaas ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa inta aan ku jirno wuxuu warar soo dhaca waan idinla socodsiin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. ogeysiis muhiim ah waxaa lagu wargelinayaa dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya in la furay xarun ay ku midaysan yihiin injineero Soomaaliyeed oo dhanka dhismaha ah waxaana lagu magacaabaa xaruntaas Vanguard Solutions. waxay ka caawinayaan hindisaha iyo naqshadaynta dhismooyinka kala duwan sida daaraha dhaadheer iyo kuwa gaagaaban, kaabayaasha culus ee dhaqaalaha sida wadooyinka, buundooyinka, eraboorada iyo dekadaha, iyadoo ay ku adeegayaan injineero khubaro ah oo ka soo shaqeeyay dalka dibadiisa sida wadamada Midowga Yurub iyo Ingiriiska iyo qaar ka mid ah dalalka Bariga Dhexe. waana khubaro ka diiwaan gashan machadyada qabiirada injineerada ee dalka UK sida macadka la yiraahdo Institution of Civil Engineers oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano ICE, kuwaas oo ka gaaray heerka aqoontooda C Engineering iyo waliba dib u dhiska iyo dib u dayactirka dhismooyinkii ku burburay dagaaladii sokeeye. waxay sidoo kale ku ballan qaadayaan inay ka shaqayn doonaan adeegyadaasi. fadlan la xiriir telefoonada iyo emailada shaashada ku qoran si aad u hesho injineeradan takhasuska u leh dhismaha kala duwan. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo. waa galabnimo Jimco ah mar kale waxaan idin leeyahay Jimco mubaarak. haddaba waxaynu guda galaynaa barnaamijkeena labaad ee maanta oo Jimco aan idiin soo gudbinayno. barnaamijkeena waxaynu maanta kaga hadlaynaa xaaladda Gaza inta badan sida ay wax yihiin. saakay wax badan baan ka hadlay barnaamijkii subaxnimo ilaa khariidadii sida ay wax u socdaan wax badan waxaan u malaynayaa inaynu fahamnay. haddaba marka maxaa soo kordhay tan iyo saakay intaynu kala maqnayn. haddaba saakay nimankii waxay sii wadeen weeraradoodii waxay sameeyeen dhinaca cirka
ayay aada u duqaynayeen. maanta waxaa la yidhi qaybihii dambe bahaaladii ay soo gelinayeen qarxayay waa yaraayeen, laakiin diyaaradaha dagaalka ayaa cirka ka duqaynayay gaza. goobaha ay bartilmaameedsanayeen waxaa lagu sheegay inay yihiin guryaha dhaadheer ee ka haray awal duqaymahoodii hore. qaar iska badbaadaa jira. burj mushtahi dhismo la yidhaahdo ama dhismaha mushtahi la yidhaahdo oo ku yaalay gaza ayay maanta dhulka dhigeen. saacada ka hor ayay waxay yidhahdeen ha laga baxo dhismayaasha waaweyn oo dhan oo magaalada ku haray, waa baabi'inaynaa. dhismahan marka ayay maaragtay diyaaradaha dagaalku ay duqeeyeen. dhismo dheer waaye oo bartamaha gaza ku yaalay, marka waana dhisme dadka inta badan ay kaga dhuuman jireen dhibaatooyinka iyo duqaymaha iyo qabowga iyo waxa kan iyo iska geli jireen. haddaba marka waxay ku eedeeyeen, waxay dhahdeen dhismayaasha dhaadheer xamaas ayaa qoryo la korta oo dadka maaragtay askarta naga laysa. marka sidaa darteed wax dhismo dheer oo dhan dhismayaasha dhaadheera la yidhaha dhan waa baabi'inaynaa. haddaba marka hore aan idin tuso jawiga siduu ahaa iyo xaaladdu siday ahayd, walaahowga meesha ka jira, duqaymaha, dadka caruurta iyo waalidkii oo kala cararaya, qaylada ka socota gaza. ilaahu dadkaa badbaadi. aan bal daawano xogaa. waa tahay. haddaba marka ay soo baxeen marka arrimaha ku saabsan israa'iil inay guryaha dhaadheer xamaas ayaa qoryo la korta ah, ayaa dadkii iska lahaa guriga mushtahi ee maamulayay waxay yidhaahdeen waxa israa'iil ay sheegayso wax ka jira male, waa been. si ula kac ah ayay u baabi'inaysaa guryihii u haray dadka falastiiniyiinta. waxay rabtaa inay dadkan guryahooda baabi'iso, dhulka la sinto, meesha culays lagu saaro, dadku iska qaxaan oo iska cararaan. haddaba marka aan idin tuso maamulka guriga la yidhaahdo burj mushtaha ayaa waxay beeniyeen sheegashada israa'iil. haddaba dadka iskale gurigaasi oo maamulayay waxay yidhaahdeen magaalada gaza ku yaalay in ay markaa ciidamada cirka israa'iil ay duqeeyeen, iyagoo ku marmarsiyoonaya in xarun military muqaawamada islaamiga xamaas uu ahaa sida ay sheegteen. laakiin dadka guriga iskale waxay yidhaahdeen wax ka jira male, arrinkaas waa been, waana ula kac inay maaragtay si ula kacayeen guriga u burburiyeen. dhismahaasoo dhan intaasoo lacaga ku baxday ayaa daqiiqad kooban waa aragteen videoga dhulka lagu dhigay. dadkii marka hantidoodiyaa la baabi'inayaa, iyagiyaa la dilayaa, cisbitaalladiyaa laga weerarayaa, wax u haray maleh. gaajaa lagu dilayaa, dawo la-aanaa lagu dilayaa. wallaahi meeshaa musiibaa ka jirta, dhibaato. ninkiyaa marka hadlay maanta wasiirkii gaashaandhigga, markaasuu ku jeesjeesayaa reer gaza. wuxuu leeyahay waa furnay albaabadii naarta. waa arkaysaan waxa aan samaynayno leey, guryahaan burburinayno, waxa aan qarxinayno, waxaan idiin naxariisanayno male, cid nala hadli kartana ma jirtuu leeyahy. haddaba marka aan idin tuso ninkaa hadalkiisa. wuxuu leeyahay wasiirka gaashaandhigga Katz wuxuu yidhi haddeer waxaan furnay albaabadii jaxiimada ama naarta gazaan ka furnay. wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Katz wuxuu leeyahay haddeer waxaa noo furmay oo aynu furnay albaabadii jaxiimada gazaan ka furnu leeyahy. marka wuxuu leeyahay sida aad arkaysaan waxaynu bartilmaameedsanaynaa guryaha, goob kasta, meel kasta ayaynu bartilmaameedsanaynaa. shuruuddeenu waxay tahay in maxaabiisteena naloo sii daayo, xamaasna hubka ay dhigto, oo markaa maamulka gaza ay isaga tagaan, oo markaa meeshaa inagu aynu la wareegno leeyahay. xaalku marka halkaasu marayaa. iyadoo marka sheekadu halkaa marayso oo ninkan jahanamaan furno leh ayaa iyaguna inkaartamayaan. falastiiniyiintu waxay leeyihiin ilaahay fadligiis adinkuna jahanamadaas adinkaa ku daadan doonay leeyihin. jahanamada aad sheegtay inaad ka furtay gaza albaabkeeda waa furtay,
waxa ku daadan doona adinkaa noqonaysaanay leeyihiin marka sheekadii halkaasee mare laakiin lama soo sheegin weli wax ciidan dhulka ah oo Israa'iil ay si toosa u gelisay inkastoo ay leedahay 40% eeriyadaas waa qabsanin laakiin qabsashada waxaa lagu tilmaamay inay burburisay oo wax jooga aan la arkin oo markaa meesha ay markaasi ay leedahay waa burburinay marka xaalku marka halkaas maraa nimankan marka Israa'iiliintu waxay taagan yihiin annagu maxaa wareer u galeynaa dhulkana waa ka qarxinaynaa cirkana waa ka qarxinaynaa ilayhi marka sheekadu ayaduna halkaasay markaa maraysaa marka qaybtan halkaa ayaynu ku joojinaynaa qayb kale oo waxaa jirta wararka cusub ka mid ah nimanka la yiraahdo al-Qassam waxay sheegayaan waxay leeyihiin al-Qassam waxay leeyihiin nin waxay soo bandhigeen maxbuus ah oo maxaabiistii hayeen ka mid ah kaasoo markaa bartamaha magaalada saas loogu wareejinayo godkii laga soo saaray fariino wuxuu u dirayaa ninka la yiraahdo Netanyahu marka aanada tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray al-Qassam waxay faafisay video oo markaa ku saabsan maxbuuska Israa'iiliga kaasoo gudaha magaalada Gaza dhex wareegaya sida la leeyahay haddaba marka waxaa leeyahay kataa'ibul Qassam garabka militariga Hamas ayaa maanta Jimcaha waxay soo dhigeen video ay markaa ku muujinayeen maxbuus Israa'iiliya kaasoo gaari dhex saaran oo markaa ku dhex wareegaya burburka guryaha ay burburiyeen Israa'iiliyiinta ee magaalada Gaza dhexdooda isagoo ku wareegaya wuxuu sidoo kale sheegay in markaa ninka la yiraahdo Netanyahu uu mas'uul ka yahay dhibaatada iyo haysashada maanta isaga la haysto waxaana uu sheegay waxaan aaminsanahay ayuu yiri xaqiiqadu inay tahay in xukuumadeena oo Netanyahu iyo Ben Gvir iyo Smotrich ay iyagu markaa mas'uul ka yihiin inay arinka maxaabiista ay iyagu markaa sida inay ku jiraan ay doonayaan marka ninkaas marka waxa leeyahay fariinay ahayd idinku wax kasta soo ma baabaynaysan dadka soo ma leeynaysan dadkay ku dhex jiraan ogaada waa maxaabiistiin magaalada dhexdeeda wax ka marayaan marka hadaa godadka kaliya u maleeshiin god kaliya kuma jiraan banaankana waa joogaan marka dadkan aan leeynaysan kuwiinana waa ku jiraan waaye fariintaas marka iyaduna la soo diray haddaba marka sheekadu halkaas ay maraysaa xaaladdu cirkaas ay maraysaa reer Gaza marka culays fara badan saaran ilaahay oo marka culayska ka qafiifi ayaan leenahay qadar xayeysiisa kadib waxaan u gudbaynaa qaybaha dambe ee barnaamijka iyo Netanyahu xafiiskiisa oo war soo saaray mataashahay barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada hab casri ah online adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada markaas Daaru Taqwa waxa kugu baraya quraanka hab casri online maadooyinka ka baran karto waxa kamid ah quraanka kariimka igada luqada carabiga iyo culumta shariicada sidoo kale way socotaa fadlan horugaad waxay faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda hamogaadi dugsiga markaas Daaru Taqwa sharikada Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaan The View xaafadda Backlands jidka 6 Avenue City Park dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah waxaana uu ka kooban yahay sida 2 qol 3 qol 4 qol iyo waliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo 2 dabaq oo isdul saaran waa nooca loo yaqaan duplex haddaba imika waxa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiim hanti yeelo kala xiriir telefoonada kula wanaagsan asxaabay jimco wanaagsan barnaamijkeennii galabnimo ayaanu maraynaa waxaynu ku jirnaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka qaybtan waxaynu ku soo qaadanaynaa Netanyahu xafiiskiisa ayaa soo saaray war ku saabsan xaaladda Gaza haddaba marka aan idin tuso Netanyahu xafiiskiisa wuxuu leeyahay annagu wax uu yeelayo ma jiray leeyihiin dacaayad kasta oo video oo la soo dhigo oo markaa wax dacaayada annagu markaa hadafkeena iyo ujeedadeena waan xaqiijinaynaa iyagoo u jawaabaya
fiidiyoyada maxaabiista laga soo duubaya ee xamaas ay soo dhigayso. ra-iisul wasaaraha xukuumadda waxa uu sheegay in markaa dagaalka ay suuragal tahay inay joojiyaan sida ugu dhaqsaha badan, laakiin shardiga uu yahay midkii ay horey usoo dhigeen, kaasoo ah in maxaabiista la soo daayo, hubka ay dhigaan xamaas, israa'iilna ay maamulka amniga ay qabsato magaaladaas oo markaa xukuumad aan wax dhibaataa keenayn halkaa markaa laga sameeyo. laakiin waxay sheegeen video kasta oo lasoo dhigo waxay u arkaan dacaayad inay tahay, marka waxay leeyihiin waxba kama dhimayo hadafkeena iyo ujeedada aan doonayno inaynu Gaza ka gaarno. marka Netanyahu warkiisu waa cad yahay, wuxuu leeyahay video soo dhiga, maxbuus ka hadal siiya, waxa rabtiin sameey, anaga waxaas ma nacliso, shuruudahan kaliya ayaan rabnaa in maaragtay maxaabiista la keeno, xamaas hub ka dhigto, iska baxdo meeshana annaga aan la wareegno. intaas haddaan la helayn wax shaqaynaa ma loo leeyahay. marka waa arki doonaa kolley xaalku halkaasuu maraa, marka halkaasaa la isku midiyaa afaysanayaa, baashu cirkaasay maraysaa. reer Gaza weerar culusaa lagu hayaa, duqaymaa lagu hayaa. maanta waxa uu jirsaday dagaalka 700. xamaas waxay tiri maanta 700 uu maanta uu marayaa dagaalka maalinku bilowday ilaa hadda maalinkii 700aad waaye. waxaan idiin sheegaynaa dheen adduunyadu inay iska sii fiirsanayso xasuuqa dadkan lagu hayo. waa ceeb ay dhahday xamaas, warbixinay soo saartay. marka barnaamijkaygii intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa. asxaabay galab wanaagsan, jimco wanaagsan, like gareeya oo share gareeya barnaamijka. sidoo kale haddaad nagu cusub tahay subscribe-ka ka iloobin youtube-ka, facebook-na follow garay. inta aan mar kale barnaamijkan lamid ah ku kulmayno meel kastoo aad joogtaan, nabadgelyo.